بسم الله الرحمن الرحيم والصحافات كسو بحي xildhibaano ka tirsan baarlamaanka labada gole ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo eedeyn u jeediyay ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya 9 bisha Abriil 2023 madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ku ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ku gudoomiyaha golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ku gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaa muddo dheer ka socday magaalada Laascaanood ee gobolka Sool تعديو دلال قرشيسان براكعين ويررقاد ما أي سوق عادين تلسك مصبيح ويررها أسقط دردا يعلاد وكهري يديك أنا داس أي أبو ريد ما شد داوع براكع يبربر هنتيادو بحدله حل باندو وحيوم هالعلني يعني مدحوينها جمهورية الفدرالية الصومالية دكتور حسن الشيخ محمود يرئيس الوزراء حكومة جمهورية الفدرالية الصومالية حمزة عبد البر سيدا يتحق لنا يعني ربيتان كشعب كإسسي una soo dhaweynayaan go'aamada ismada iyo guddiga 33 ah oo ay ku cadeeyeen rabitaanka shacabka iyo masiirka deegaanada SSC hadaba xildhibaanadu waxa ay ka digayaan ku xadgudubka dastuurka dalka shuruucda mabaadi'da guud ee dawladda federaalka Soomaaliya sida ku xusan dastuurka ku meel gaarka ah qodobkiisa koowaad farqadiisa koowaad iyo labaad iyo saddexaad si loo ilaaliyo midnimada dalka Soomaaliya xildhibaanadu markay abrgeen قفك يحدقوب كقصو يرزار كحين كدلك الصومالية مدن صالح أحمد جامع تاريخ مركي هيد شنتي بيشي أبر لوضع كن لواتني الصدح ذا سامية تستور كدلك يقامد اسمه وحب عداتي كو إن رئيس الوزراء كحين كدلك وتاجريه قوني قصة مملكة مصبيح لبا إن رئيس الوزراء كحين كدلك وصن احترام وهينين كدقن كتستور كيشروع ذكلا يدلك وطالع صدق إن رئيس الوزراء كحيانك دلكو وكبه الشيء دارتي ومر دلك الصومالية أفر إن رئيس الوزراء كحيانك دلكو وكوجا في مسؤوليته ودلك وهايو هذا واحد اللي معناه وحيكون باقي إن حكومته طلبات كوابون كقاعد رئيس الوزراء كحيانك ما دام وكوجا في دستور كدلك سيدو كله اللي معناه وحيسو جدين يعني إن لفليو قان كي السماء يجودي قصدني يصدق أي صوص عارين تاسو أي كوعد ديان من ماذا يوضع الشركة شعبك الصومالية dawladda federaalka Soomaaliya waxa mas'uuliyad ka saaran tahay midnimada wada jirka shacabka iyo inaan lagu dhibaateyn midnimadoonka iyo rabitaanka qarannimadooda waxay xildhibaanadu ugu baaqayaan maamulka Musabbix inuu si degdeg ah ciidamadiisa uga baxo deegaanada SSC khaatimo waxay ugu baaqayaan hay'adaha caalamka iyo kuwa xuquuqul insaanka in la diiwaan geliyo gobodfalada ka dhacaya magaalada Laascaanood lagulana xisaabtamo cidda xasuuqa geysatay maatada iyo carruurta cidda xasuuqa u geysatay sidoo kale barakicisay guryahoodina ka barakicisay burburisay isbitaalada masaajidada sidoo kale waxaan hay'adda gargaarka ee Sodma aan uga mahad celinaynaa dadaalada ay wado ee gargaarka bini'aadanimo waxayna ugu baaqanaa sidoo kale inay si laba jabaarto waa mahadsantihiin wabillahi tawfiiq salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh